waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaa xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta halkaas markii ay maraysay waxba iiga baxay dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka afkiisa inta ay ka sii dhamaanaysay markiiba Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur gacanta ayuu ka qaaday kitaabka lagu dhaaranayay waxa uu dib u celiyay maskaxdiisa xilli uu horay u sheegay in dastuurkan lagu dhaafto ay soo saareen gaalo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo shaki weyn laga qabo in mar kale uu ku biiro ururka hubeysan ee Al-Shabaab Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waa uu shakiyay kulamada golaha wasiirada ay yeeshaan toddobaadkiiba mar waa su'aal kale oo taagan in uu ka qayb galayo wadaadkan shakiga weyn laga qabo ee xilligan ku biiray xeendabka dawladnimada dhaartii uu dhaartay Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo shaki weyn abuurtay isla markaana ku abuurtay hay'adaha kala duwan ee dawladda wasiirada qaar oo cabsi darteed u diiday inay ka qayb galaan kulamada golaha wasiirada waa warbixin degdeg ah iyo hayaanka news fadlan haddii aad ku cusub tahay page-keena Facebook follow soo dheh muuqaalkan like saar siina share garay si saaxiibo badan oo sidaadoo kale ah ay u gaaraan wararka degdega iyo warbixinada xasaasiga ah aan halkan ku soo gudbino aad baad u mahadsantihiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la dhaariyay waxaana codka kalsoonida siiyay 229 mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya haddaba shaki weyn ayaa soo baxay oo ku aadan in xilligan shaki weyn ay ka muujinayaan mas'uuliyiinta dawladda wadaadka lagu magacaabo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo kaamiradu ay soo qabatay xilli uu gacanta ka qaaday kitaabka lagu dhaaranayay haddaba maxaa dhacay dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala waa qodob xasaasi ah oo xilligan lagu haysto Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur wadaadkan inta uu ka tirsanaa ururka hubeysan ee Al-Shabaab horay waxa uu u sheegay in dastuurka lagu dhaarto ay soo saareen gaalo isla markaana xilligan uusan ku dhaaranaynin arintaasi shaki weyn ayay abuurtay mas'uuliyiin badan ayaa dib u gurtay oo ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kuwa oo xilligan sheegay in baqdin weyn ay ka qabaan wadaadkan lagu magacaabo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre dhankiisa waa uu shakiyay waxaana su'aal xilligan ay ka taagan tahay kulamada golaha wasiirada toddobaadkiiba mar ay yeeshaan oo xilligan markaasi laga cabsi qabo in wadaadkaasi uu isku dhex qarxin karo maadaama haatan la sheegayo inuu si aad ah uga soo horjeedo dastuurka dalka u yaala ee ku meel gaarka ah haddaba Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo loo dhiibay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya sidee ayuu u maareen doonaa maadaama haatan shaki weyn laga qabo sidoo kalena ay ka cabsi qabaan mas'uuliyiinta qaar ee golaha wasiirada in ay naftooda ugala baqaan ka qaybgalka kulamada golaha wasiirada haddaba daawade aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb tan iyo kulan dambe nabadgelyo waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya
ee Madrasatul Qur'aan Online oo ah dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca. علومta kala duwan ee dugsigan aad ku baranaysa waxa kamid ah barashada xifdiga Quraanka Kariimka, barashada higaada afka Carabiga, barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada Islaamka sida fiqiga, axaadiista, tafsiirka iyo culum aad u fara badan. dugsigan ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la barayo diinteena Islaamka. hadaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga Madrasatul Qur'aan Online. wixii faahfaahin inta dheer waxaynu kala xiriireysaan taleefanada shaashada idinka muuqda.